موضوع la isugu yimid waad ka wada dheragsan tihiin sida wasiirku hadda soo qadimay dalkani markii uu federaalka qaatay ilaa iyo hadda waxaa lagu jiraa hanaan ah federaalkee mas-uuliyadee xaggee ka fulaysa guud ahaan dalku hadday tahay dowlad federaala iyo dowlad goboleed mas-uuliyadahood hadday tahay amni hadday tahay cadaalad hadday tahay dhaqaale wax walba waa inay ku fadhiyaan mas-uuliyad la yaqaano meesha ay tahay arrimahaas waxaa lagu saleeyaa wasiirka hadda idinla hadla wasiir saalax iyo inta kaleba lagu shaqeynayaa mas-uuliyaduhu meesha ay ugu fiican oo ay ka fuli karaan in la dhigo ama ha ahaato hadda wasaaradaha uu tiriya wasiirku oo hore loo arkay ama ha ahaato inta dhiman oo fahamku yahay maanta halkaan in cadaaladii iyo ay maanta halkaan u joogaan inay iyaguna presentationkooda sameeyaan guud ahaan arrinka dhani wuxuu ku urursan yahay in nidaamkii federaalka ahaa la calaameeyo mabaadi'da ugu waaweyn sida loo wadaagayo kadibna laga hadlo mabaadi'daasi sida ay u kala qaybsamayaan tusaale yar haddaan qaato mathalan waxaan hadda wasiirka hadalkiisa ku jiray waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo inay mareen soo saas maaha waxbarashada waddanka oo hoos imaan doonta nidaamkaas federaalka waxaan ka rabnaa waxbarashada waxaan u qaadanayaa tusaale keliya waxaan ka rabnaa in ardayga soomaaliyeed markuu da-da ama 3 sano ama 4 sano xanaano ku galo ilaa uu jaamacad ka qalinjabiyo uu rabo waxbarashooyin kale inuu sii wato la rabo in horumar laga sameeyo cilmi baaristii dalkaani u baahnaa technologygii wax walba siyaasad ay ku shaqeyso iyo fulin siyaasaddaas inay ka fusho ama dowlad federaal mas-uuliyaddeed noqoto ama noqoto mid dowlad goboleed ama noqoto mid gobol ama mid noqoto mid degmo ama mid tuulo arrimahaas marka maadaama ay ballaaran yihiin sidaas wasaaradda waxbarashada usoo gelayso wasaaradda arrimaha guduhu usoo gelayso wasaaradda maaliyadda usoo gelayso wasaaradda cadaaladda usoo gelayso hay-ad walba mas-uuliyaddeedii federaal iyadoo ama heer federaal ah ama heer dowlad goboleeda ama heer degaan ah in la calaameeyo marka arrimahaas waa muhim dabcan anagu hadda intaan ka qaban karnaa aan ka qaban doonaa laakiin arrimahaasi waxay ku qormayaan buug furan oo socda oo sanad walba iyo 10 sano walba iyo 20 sano walba isbedel muuqda lagu sameeyo iyadoo mar walba laga eegayo wixii noo dhignaa oo aan 2020 aqbalnay ama sharci ahaan u aqbalnay ama siyaasad ahaan aan u aqbalnay isbedelka ay ku keeni doonto socodka dowladnimadu heer walba in inta dib loo fiiriyo haddana lagu noqdo wasiir saalax oo ah wasiirka dastuurka ayaa runtii initiative-kan iska lahaa bilowgeedii oo yiri war annaga howlaa nala ka rabay howlaha iyagana waxay jiraan wasaarado badan wasaaradaheennay oo dhan inta isu nimaadno intii nagala shaqeynaysay oo saaxiibo caalamiya ah isu keeno khubaro isu keeno halkaan maanta waxaan arkaya ninaan aqaanaa fadhiya xasan waraaye you disappeared in intaanoo dadii inta isugu yimaadaan mashruucaas wasaaradda dastuurka isu keenidda howlaha ay isu keentay aan ka dhaxalno qodobadii aan dastuurka ku darsan lahayn
inaan qaabayno. dabcan howlo kale oo aan hadda howlkan lagu qaban karin oo wada hadallo iyo wada xaajoodyo dambe oo siyaasiya iyo oo heerar kala duwana iyo ayay u baahan doontaa. aada iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa dadkiina mas-uuliyiinta ah halkaan kusoo aruuray. waa fahmayaa dadka qaarkiis qolkaan ku jiraa inaysan afka aan ku hadlayo fahmayn, laakiin inta badan af soomaali ku hadlayso ay tahay in aan qaato af soomaali inaan ku hadlo. aada iyo aada u mahadsantihiin. waxaan ku duceyneynaa awood badan oo dadaal iyo waqtilana aan gelin doonaa hawsha aad halkaan u joogtaan si ay u dhasho dib u eegista dastuurku inuu helo qodobadii dastuuriga ahaa oo u baahnaa oo ka yimid wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga oo dhan, kadibna looga ra'yi qaato lagala tashado dowlad goboleedyada oo dhan. qof walboo soomaaliyii cadkiisa kusoo daro si documenti loo dhanyahay oo ummadda soomaaliyeed dadkeeda iyo dalkeeda anfaca. aada iyo aada u mahadsantihiin. waxaan idinku bogaadinayaa hawsha aada soo wadeen, haddana aad ku dhex jirtaan. waxaan aada u rajaynayaa inaan ka wada shaqeyno dhamaystir lagu gaaro ujeedadii aan lahayn inay ka timaado. aada iyo aada